Assalaamu calaykum. Maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qisada Hala Atiiq. Hala Atiiq waa gabar 13 jir ah oo u dhalatay dalka Suuriya. Sanadkii 1955 ayuu aabaheeda go'aansaday asiga iyo qoyskiisaba inay u guuraan dalka Mareykanka. Qoysku wuxuu ka kooban yahay xaaskiisa iyo 3 gabdhood oo Hala Atiiq ugu yar tahay. Diyaaradii ay soo raaceen waxay caga dhigatay magaalada New York, balse iyagu waxay rabeen inay uga sii ambabaxaan gobolka California oo ah meesha ay rabaan inay degaan. Markay ka degeen garoonka New York ayaa hooyadii iyo 3 gabdhood laga dalbaday inay xijaabka iska bixiyaan si sawir looga qaado kadibna loogu dhajiyo green card-ka. Hooyadu markii hore way ka cagajiiday balse markii dambe way ogolaatay. Gabadhii ugu weyneed gabdhaheeda iyadana way ogolaatay. Gabadhii labaad iyadana way ogolaatay. Kadib waxaa la soo gaaray gabadhii reerka ugu yareed. Hala Atiiq markii la yiri xijaabka iska bixi way diiday. Wax badan ayay gaaladii isku dayeen inay gabadha yar ku qanciyaan inay xijaabka iska siibto si sawir looga qaado, balse go'aankeedii ayay ku adkaysatay mana siibin xijaabka. Waxay bilaabeen in ay ugu hanjabaan inay dalkeedii Suuriya ku celin doonaan haddii ay ogolaan weydo inay xijaabka iska bixiso. Hala waxaas oo dhan dheg jalaq uma aysan siinin. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen in iyadoo xijaabkeeda wadata sawirka laga qaado. Hala waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee green card-ka sawirkeeda lagu dhajiyo iyadoo xijaaban. Diyaaradii ay rabeen inay sii raacaan ee California u socotay ayaa la soo sheegay inay ka tagtay maadaama ay soo habsaameen. Saacado kadib waxay warbaahinta ka maqleen in ay burburtay diyaaradii u socotay California ay markii hore rabeen inay raacaan. Hala ayaa tiri fadliga Ilaahay iyo xijaabka aan diiday inaan iska bixiyo ayuu Ilaahay nooga badbaadiyay geeri. Fadlan walaal, adigoo mahadsan, share leh oo la wadaag walaalahaaga kale si ay u daawadaan qisadan.